gudoomiyaha banka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta daafuray qorshe sanadeedka sanadka 2020 munaasabaddan lagu daafurayo qorshe sanadeedka ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee banka dhexe iyo waliba sidoo kale marti sharafaad u tiro badan ugu horeyntii waxa munaasabadaasi furay agaasimaha guddida horumarinta banka dhexe Cabdirashiid Cabdullaahi Jaamac waxaana hadaladiisii kamid ahaa guddidu isla qaadatay in bal laga bilaabo bilicdii banka oo banka sidii loo dhisay dhowr sidii loo dhisay iyo wixii ka horeeyayba kii ay noogu nimi baynu ku taagnayn waxa loogu horeysiiyay wax qabadkii dhismaha laanta xarunta laantii berbera lagu xigsiiyay oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo xariga ka soo jaray waxa jirtay iyaduna laantii Boorama oo iyadana dhismaheedii iminka gacanta laga qaaday waxa iyana ku xigtay laantii Ceergaabo oo iyadana si wanaagsan wax looga qabto ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo xiray gudoomiyaha banka dhexe Mudane Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi oo ka sheekeeyay wax maraaxilkii uu soo maray banka dhexe waxa dhici doonta hadii alla yiraahdo tayeenta shaqaalaha inay muhiim tahay oo qayb ka noqonaysa qorsheynta dib u eegista nidaamka shaqaalaha laftiisa iyo qaybtan kormeerka ama internal auditka oo la xoojiyay iyaga lafteeda inaynu inagu horta kor u qaadno oo efficient noqono oo kharashyada aan loo baahnayn in yarayno dakhligeena kor u qaadno sida barnaamijkan quruxda badan aynu finance gareyno 2019kii waxaynu dhisnay infrastructure keenaynu dhisnay banka laamihii waynu dhisnay kanoo kale aynu dhisnay markaynu ku jiro marka weelkii baynu samaysanay aynu ku duuli lahayn aynu ku qaban lahayn marka sanadkan 2020 waxa looga fadhiyaa maadaama aynu samaysanay infrastructure-kii in wax qabad weyn oo muuqdo kale aynu gaadhno 2019kii waxa kale inoo qabsamay sicir bararkii oo aynu aad u dejinay oo aynu gaadhsiinay ilaa 4.5% kana soo dejinay 18% iyo qiimaha shilinka oo isuna aynu stability iyo dejinay 2020ga qorsheenu waxa weeyaan ma aha inaynu qiimaha shilinka kor u qaadno waxa weeyaan in halka ku hayno 8500 inaynu ku hayno weeye oo aanu korna uga kicin hoosna uga dhicin haddii ilaahay la qabto waxaynu ku tala jiraa inaynu dhisno ama bilowno dhismaheeda daarta u dheer Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo Djibouti doonto 15 dabaq kula dhisaankii gacanta lagu hayaa iyo architecture-kii waxaan u dhiibnay shirkad ima gacanta ku haysa markay soo saaraan qiimaha oo inuu ka caayo iyo sida way kaanayso ayaynu isugu iman doonaa mar dambe noogu gabagabadii munaasabadda waxa halkaasi gudoomiyaha banku shahaado sharaf ku maamusay guddida horumarinta banka dhexe isagoona uu gudoomiyay gudoomiyaha guddidaasi waa Idris Bershe telefishinka Universal Hargeysa Cabdiraxmaan Yaasiin British warbaahinta SBC Hargeysa